وأيدي سلام يا مركلة وكفرح سنة هاي لأن يرادا إن اللي رجليو أنا قدرت تركينا ساكي لبصع صار شقوتك نوعي مركا لوها وأنا قررها هاي معنا مفت حال كينا ما في عنا وحا كوفي عنتها هاي هذا الكمين أبو دنبيسو horta dadka digestion kooda iyo wixii la sheegay oo dhan waa loo sheegay wax macna badan la sheegay waxaan rabaa xeer in soo kordhiyo kelimada AI da ma artificial intelligence ga dadku hadda qaybtan textiga ah oo ChatGPT ba maskaxdooda ku jirta waxaan rabaa inaan idin sheego marka aslan bal logic in la isticmaalo logic maxaa la systems in la isticmaalo 1956 بالا بلابي برودكتسكا إن لقوا درو artificial intelligence magaca aan la isticmaalin hadii la doono waxaan idin xasuusinayaa baabuurta ka soo bilaaw break baabuurka aad saarinta logic buu ku shaqeeyaa oo baabuurka yaa u sheegaya marka break tartiib u qabato iyo marka xaw u qabato waxa soo dhan oo aqli hadda ka sii daradii hadda asaaba ogaanaya marka wax ku dhici rabo laakiin ebil waa ogeedeen break steps ka ku qabato logic buu ku dhisnaa ya behavioral logic buu ku dhisnaa kaamirooyinka ustaad waxay dhaqaatiirta waxay isticmaalaan scanners kala duwan ay isticmaalaan scanners kaas oo dhan artificial intelligence buu isticmaalay recognition ka faceska waa ogtiin ITM hadda la sameeyay waa ma mogt ITM kana tagto kaamiro ku qabatay ku aqoonsanay qofka kaarka galiyay inaan leedahay inay tahay marka long time ayaa horta baash la isticmaalay qaybtan textiga oo xaaskaaga iyo ka wareysanaysid iyo dadka iyo xanta bis baa cusub marka artificial intelligence ga wiyara jiray waligiis wuuna sii xoogaysanaya haddana fields kastoo galay hadaad ustaadkii ka hadlay beeraha kale wuxuu dhahay beera baa sameynay beeran qabanaa laakiin beerihiis hadii la tago waxaa la rabaa in intelligence uu yahay beerta example waraabka in qofna u baahneen oo time gareeyo geedka inta biyo u baahan yahay kaliya inuu siin karaayo goormee la saaraya oo production laga soo saaraya geedka waa inuu macluumaad la heli karaayo si u yareyso waqtiga iyo shaqalka dadka ay gelinayaan intelligence-ga anaga shakhsiyan waxaan isticmaalnaa software kala duwan oo aan ku addressno go'aamanka aan gaarino forecasting ka sameynaysid haddii aad ka ganacsanaysid suuq forex ama aad ka ganacsanaysid crypto ama suuqyo kala galaysid software badan baa isticmaalaysaa oo intelligence ah oo maxaa la yiraahdaa macluumaadka analyze gareenayo data badan ma access u leh kadibna aad decision kaaga aad ku support gareynaysid oo lacag yarna iska bixino aan badneen sanadkii marka artificial intelligence-ga ama digitalization-ka uu yara balaarmay meel u san galin malahan waxaan ku dhiirigelin lahaa dhalinyaro aniga waxaan sheegay waxaan sameeyo waa normal marka macalinka daad wuxuu research macalinka barijo research naftirkiisa hadda waa u isticmaalnaa asigu qormay laakiin wax badan buu fududeynaya waxaan isticmaalaa software literature ka dadku waxaan bari jiray ebel in mid loo review gareeyo mid loo akhriyo hadda boqolka article baa sa akhri leeyahay summarize gareey soo koob sheetkaas noocaas kala u sameey within 5 minutes waxaan hayaa data dhammaystiran then I write my own review adiga iyo qorba dhigi karaysid sababtoo ah software-radii lagu marka daabiciisa lagu soo qabanaya laakiin process-ka dhan ayuu fududeynaya marka lacag sameyn iyo nolol fududeyn intaba waa u isticmaalnaa si talooyinka la siiyo ah inaad ka soo gudubtaan aad iyo aad inkastoo iska jeclahay comiga iyo waxyaabaha qosolka ah haddana inay ku koobnaato kaliya artificial intelligence-ga Soomaalida maamo duq ah oo wiil yar aroosayso wax noocaas oo kale inaan indhaha naga baabiisaan kaliya loomba I don't mind it runtii dadka aad u necab yihiin comiga I like it laakiin halka kaliya inaad joogtaan oo maxaa la loo isticmaalo kaliya ma nolosha wax ka bedeshaan rabaa safarada marka safar aadayo waa isticmaalaa balamaha asaa organize gareeya maxaa la yiraahdaa doodaha aan ka qayb galayo asiga ayaan isticmaalaa so nolosha inta badan hadartaan AI ayaa loo isticmaalaa maxaa ka faa'iideysa waqti ku fududeynaya aqligaaga wax ma ka bedelayo dadka qaar aaminsan in dadka dhaam noqon doonaan dabaalo noqon doonaan no aniga amarka u diray waa shaqaale badan oo qabo oo lacag yar iga baxdo ee lamid shaqaale tiro badan for example reports waxa la soo diri jiray soo qaad 200 page hay'ad caalami ku soo diray waxay ugu qaadan lahayd 2 weeks in akhri ama 10 days ma akhrinay yani 200 shan su'aal 6 su'aal 2 su'aal oo muhiim ah aan weydiina reportka sa akhrinayo
summarize ka sameeyaan leeyahay report ku waa hayaa within 10 minutes waxaan sheegi karaa wixii soo qoreen oo dhan intii ugu muhiimsaneed marka noloshu fududeynaya shaqaale tiro badan oo qaado leh hadaa company tahayna wuu ka yareynaya cost badan buu yareynaya fursaday u tahay dhalinyarada marka inay haday skills kaas bartaan inay shaqooyin kala duwan oo Soomaaliya ka baxsan ay wax ku qaban karaan marka intaas ku soo koobaya maadaama codeysteen short form ka aad iyo aad aan u faraxsanahay inaan dhalinyarada arko السلام عليكم ورحمة الله وبركاته